السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصومالي مركز أجوبتا وهذا السلام يا وعن دولة مانتنا قصير إذا كنتم من هالكان وحيلتها محمد كيسة باش أو كم ده على غيرته هالكان كل على تيودن كقدر محمد قصير وعجيبة يندو تكشيكي ميل وشاه كوكرين جري أيو كبح أيو وحباشور راسدي مركز قصة صار ما يندب ويدي محمد كسر دو حصلت يا شيخ آدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتي واحد قصيرة خفيفة ولكن الحمد لله. قصتي شاهة عين كصوب بالأبي. أنا وحنا كل شيء وطن كان ضحى وكان تعليمتي وكنا سنوية ضحى كذب وحصلها شغل الدنيا مركز. ومكان سكندري كبحر. مكان سكندري كبحر. مركز ظروفه ير أكيد مركز شقويكم ير أيضا. غير كنا ظروف ير حيسي. marka waqtiga meelo badan baa qadimay CV-gayga xilligaana de wax loo baahan yahay qof jaamacad ka soo baxay oo tacliin haysta oo shaqo wanaagsan heli kara laakiin qof sano haysta way adeer adagtay marka waqtiga waxa soo baxay inaan ka shaqeeyo qof shaaha shubaya oo waitera marka shaqadaas aad hesho shaqada isma helo waqtigaas marka duruuftu way adkay waxa yiri khalaas marka aska bilaabo shaqadan ahamiyada leeyahay waxa ugu jirtay tacliinta kamil laakiin duruuftu way adkay markaas markaan helay shaqada training ma yar qaadanay hudheelada Sheraton Hotel iyo Marriott Hotel markaan dhameynay takhasuska shaqeyn taqriiban qaadanay traininga 1 year waxa 2000 kama soo bilaabay 1 ila 1 year baheed markaan shaqada waxaan bilaabnay 2002 exactly shaqada markaan shaqada waxay dina baashino duyufta madaxweynaha wadankan Qatar Ameerika iyo duyuftiisa marka waxay ahayd qasr diiwaan Ameeri baheed marka bilaabnay shaqada marka dad badan baa la shaqeeyay dad baa ka soo jeeday markii qaateen training oo dhiibay in ka baxaan shaqada waxay moodayaan shaqeynayaan askari oo kale laakiin marka arkay qof shaah shubayo iyo service wada ma noqon si tiraade oo ceeb u tahay marka dadkaas laakiin dhinacayga waxa hamigayga waxa wax kale ku fikriyay inaad fursad ma yar sugay kadib markaana talaabadii horeysan ahaato shaqadana aad bay u wanaagsan runtii alxamdulillah dad badan yani madaxweyne badan bay maalin wadanka duyuftooda waxaad very VIP yani ma meel shaah mش caadi ma marka waas ka qaatay marka sanadii baas ka socday ilaa waxaan shaqeynay 2007 alxamdulillah marka duruuftii reerkay yar hayagtay habdii alxamdulillah soo baxay tacliintoodii oo as a nurse marka waqtigaasaan bilaabayna marka shaqeynaysay walaalaha baad rabtay fursad inay wax bartaan okay dayirta caruurtii kala waxbarashada dhameeyay markii caruurta waxbarashada dhameeyay hablee khaasatan tamriid baheed markay dhameeyeen marka aanu fursadeed meekay aabiyo marka waa dhaqaajin kartaa cilmigaada waa dooran kartaa waxa ku fikirtay markii hore sayid alxamdulillah marka sayidi waxaan ku talagalay marka aan soo raadiyo wadanka tacliin ku kamiliyo yani halkan jaamacadaha waa qaali jaamacadaha khaliijka waa qaali khaasatan Qatar marka cilmiga meeshu jira boos ku mid yahay marka waqtiga waxaan aaday Malaysia waxa joogay walaala joogay markaas iga horeeyay marka waxay kaali wadanka eego tacliintiisa haduu wanaagsan yani soo marka hadda doonta soo eego wadanka fasax bayar qaatay inay shaqeynaya wadanka ma soo eegay waxa arkay noloshiisa okay laakiin tacliintiisa waa isku mid in Malaysia economicadu aad u sareeya marka waxaan baranay dadkii joogay Malaysia iyaguna way ka baxeen intii joogeen tacliin baran Ingiriis ku jireen kadib waxay aadeen Philippines marka aanu dadka wala socday shabaabkaas baranay jaamacadda waxay Islamic University baa waqtigaas kadib wala xiriir shabaabkaas marka kadib markaan soo noqday dooxa shaqadan iska kamilay kadib sanad iyaga wala wada xiriir marka iyagu waxay Philippines sidii soo sheegeen ka warada Philippines oo timaadid oo intii tacliinta Philippines khara okay marka fasaxadan ay qaatay fasax kala qaat sanadkii kadib yani sanad kadib waxa 2007 waqtiga waa yartay 3 week marka wadanka ma soo eegay tacliintiisa noloshiisa kharashkiisa marka kharashkiisu yani aad u wanaagsan marka loo eego Malaysia khaliijka cilmigiina waa isku mid marka warqadii ma soo bilaabay marka waxa eegay markaana aqaladii kiradii iyo meesha nolosha ku walaalaha marka warkiiba oo qadimay jaamacadda warqadii jaamacadda oo qadimay warkiiba registration ki jaamacadda waa qaatay warqadii asaas marka ku soo noqdo dooxa ina aado marka safaaradda inay diideen inaan wadankan tago markaan soo noqday
markaa qorshaygan sii bila reerkii ma sii sheegay inaan jaamacadda ma helay takhasuska doonayay marka waxaan dhaqaajinaya insha Allah 2008 marka ana talaabada labaadna waan u sheegay dadka u shaqeynaya diiwaanka ka shaqeynaya marka uu sheegay mudiirkii idaaradda haystay hospitality diyaafada ina tacliimatay oo istiqaalan Liibiya wala yaabo yiri qofkan 7 sanadood shaqeynayay oo istiqaalan Liibiya yani xay keentay marka fikradan ma waxba ku jiray waqtiga ama waxba ku fikirsay farbaxsan u sheegay ku yeelan marka hore ba shaqada waxaan u galay duruufa darteeda baan galay هدفنا هو تينا تعليمتك كملوا سواء طوحة أو دبدة لكن ساكن لو شغالين سفي عن مبسوط بانكوها شغلة لأنه وحنا قاعدين شيء مشاهر لكن ما كان وقتي وناس ما وقت جيب واحد مدينة نقاشيو وصير والله بالعكس وكله فرحينا كنت أرنتاس وهذا يعني مساعدية يعني دعم كسينا يعني سبورت أي تايم مركا أتوقع على الله يعني رنتي أدبا وفرحسين إلى هنا مكان يعني توفيق خصين شبكة مع سود بيس marka warqadii bay u dhameeyeen goor hore alxamdulillah within 2 months anna marka san dhaqaajay markaana after marka dhameeyay warqadayga lacagtaas ka qaatay marka waxaan ku tawakalay ala Philippine marka ana dhigani 4 sanadood 4 sanadood hatta baratay waxa soo bartay information technology engineer 4 sanadood marka dhameeyay طبعا jaamacadda nolosheedu qof ibsa sanadood soo fadhiyay يعني وير أدقتنا لا قشيد لكن أنا هميدي ده مسكحة وحدينا ديار وهذا وقت قاس مكا الحمد لله مركا انقلتش معدة ديار موها مكا طفكي ما لحق لي طفكي فلبين طلاب تيلا شو نصبرني لأن واحد جوي فورنر تبدأ كيمة حتى السودان مصاري يمن ما صبرني مكا تعليمته بالله الحمد لله مركا أفرتي السنة بندمي الحمد لله on time مكا مضى من امتحانكم هذا ما الحمد لله الحمد لله أنا أدبو يعني كل شيء ما كان اهتماما سيء موضوع وقتين ولومين ما شاء الله هل كانت صونغ مركا صونغ 2011 وصوني من جامعة الحمد لله كدب waxaan noqday dadka ayaan jaamacad soo baxay shaqada raadinaya marka CV isku hagaajiyay waqtigaas soo qadimay meelo badan dawladda marka waqti bay iska qaadanaysaa waxyaabahaas oo kale طبعا CV-gana waxa ku jirnaa shahaado shubtay hada oo sii shahaadada hore ku jirtay inna waxa diploma bahed okay taasoo ma tuur kartid waa shahaado caalami ah fanaadiq inta okay marka waa nooc min khibraddaadii hore hadda inay kula yaabin dadka bale khibradda xaq soo shaqeysay marka aan khibradda takhasus kale u ahaa marka waa u qadimay meelo badan cilmiye soo jawaabin marka meeshii aan ka shaqeynay markii hore asaa xasuusay dadkaan si qadimo ka CV marka dadkii waa u qadimay si idaaradii information technology meeshan ka shaqeynay laakiin idaaradii information technology qaybta IT-ga marka ninkii mudiirka u qadimay isagoo xasuusanay waqtiga ina shaahu shubi jiray imkan oo soo noqday anigoo shahaada haysta wasiiri markii soo dhameysay inta sanadood marka sheekadeed buu sheegay in waqtiga waxay imkan waxaan raadinay shaqo wasiiri insha Allah markaana si وكل صح حرير دونا هذا نصيب كل هذا ميشان وكشخين دونا إن شاء الله كده ما يرسق ما كان عبار يعني صدح بلوت أنت إيمان سو موافقة ده يقبول كمان إدارة ده كده ولي يا ري بلا مقابلات مع صمين الحمد لله لأن ماشي واقع قاعدة تذكر لي قاعدة مركنا مركب واحد يسميه كونتراكت بيسميه ما شاء الله أنا ما كان وافق مركب كونتراكت ما بينه بيش قضية ماشي أنا قاعدة كبضك قصة ما كده علي ماشي أتشاه وش كشف جرتي أديكو IT وربينا شبكة وحكي قبتت ما كان صاق الشقف ساقو إيه جمتي تاقص توجهت موظفين تمر كان كسون قضي ورقضي وأركين مركي تعيين كيو وقضي السعودية بروسيس السعودية ما كان مقعد أركين ولا سقيبة أما متكلم ninkiina la shaqeynay ka hor diiwaanka joogay ama waa nin kale markii arkeen waqay contract mise arkeen maadiga oo nala shaqeynsid yani wax cajiib ah leeyahay dadka qofkan la shaqeynay hadana inuu soo noqday isagoo nala shaqeynay muwaadaf caadiya si kale waxa marka dadku aad bay u farxeen dad bay iga sheekeyn jiray yani dadkooda u sheekeyn jiray ciyaalkooda u sheekeyn jiray ina waxa sameeyay alxamdulillah wa tawfiiq bilaa da'wat alwalidayn marka sheekada إلهي سبحانه وتعالى هو فجيه جهد بين الواد جلسي هذا مركب فلبين كل تلنا سبعين تاني وخمسون سنة حتى فلبين ووطن قاعد بماليزيا إنديا أو هذا لكن تذكر وطنها فلبين قاعد مو يقانا وحكي يقانا يعني ما يصير الصومال كله بدنا ماشي وحكي سوى أنا كنت تكتب لها تذكر الصومال ده شوقين لأنه واحد أنا سمير يعني يرسك كوبان لكن علمي وأنا سوي كيرس
laakiin meelaha dadka la joogaan hadalka dadkooda u badan yahay markaa waxba wax wanaagsan xumaan bay kasoo sheegayaan waxaas laakiin runtii Philippines waa wadan aamina oo dadkooda u furfuriyeen tacliintooda tahay professional kharashkooduna yahay macquul qofku iska bixi kara marka wax ku xiranta qofka marka dadaalkiisa hadhow ma sha Allah laakiin aad baa yani dadka u sheegayaan in wadankaas aad u wanaagsan yahay qofku inuu tacliin u doonto runtii ma sha Allah jazakallahu khayr. Jazakallahu khayr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.